kusoo dhawow barnaamijka Connected Case waad ku mahadsantahay daawashada la socoshada aad sida joogto oo la socoto barnaamijka waxaan ku xasuusinayaa daawade haddii aad hore u subscribe garaynin si aad mar walba u hesho muuqaalada aan soo galno oo noqoto qofka koowaad muuqaalka soo gaaro fadlan subscribe si gambaleelkana taabo barnaamijka waxaan ku wadaagnaa arrimaha ganacsiga ee ka hadalka u baahan sheekooyinka saameynta leh ganacsiga Soomaalida ee istaahila in la baahiyo muuqaalka maanta waxaan ugu talagalnay inaan kula wadaagno ganacsatada sida loo ilaaliyo ama waxa ay tahay qanaacada macaamilku waxa loo yaqaan customer satisfaction muxuu yahay sidee baa loola socdaa sidee loo ilaaliyaa sidee loo horumariyaa si uu macaamilkaasi u noqdo macaamil mar walba ganacsiga ku xidhan faa'iidada ganacsigana waxa mar walba ay ka soo gashaa waa macaamilka inta aad macaamilka ilaaliso buu leekaanayaa faa'iidada ganacsigaaga iyo sii jiritaankiisa iyo balaadhashadiisu si aad waxa soo xoog ula socoto muuqaalka si wado qanaacada macaamilku waa natiijada ka dhalata marka uu imaado meherada ama dukaanka ee uu isticmaalo adeega ama alaabta uu hayo iyo waxa uu kala kulmo isticmaalka ama imaanshiyaha uu meherada imiday ayaa la yiraahdaa qanaacada macaamilka haddaba si taa loo ogaado marka uu macaamilku meherada yimaado saddex arrimood mid bay noqotaa in ay is yeelato wixii uu macaamilku ka filanayay ganacsiga iyo wixii uu kala kulmay taas loo oran karo waa qanaaco in ay kala bataan wixii uu macaamilku filayay in uu ka yaraado waxa uu kala kulmay meherada maga adeega ama alaabta uu isticmaalay taasoo noqonaysa qanaaco la'aan iyo in uu macaamilku waxa uu kala kulmay meheradaasi ama isticmaalka adeega ama alaabta ay meheradaas hayso ay ka badato filashadiisa taasi oo la oran karo waa wax qanaacada ka weyn haddaba ganacsade marka macaamilku uu ku qanco adeega ama alaabta ama meheradaada ay bixinayso macaamilkaasi mar walba uu ku soo noqnoqdaa ganacsigaasi haddii uu ku qanci waayo macaamilkaasi meherada uu ka tagaa dadka uu garanayana waa uu ka eriyaa oo ganacsiga waa uu ku diraa haddaba si macaamilku uu mar walba u noqdo mid ku qanacsan adeega ama alaabtaada hayso oo uu qareen ugu noqdo ganacsigaaga oo ugu doodo oo uu ideh bilaash oo lacag kaaga bixin uu ku sameeyo waxaan kula talnay inaad mar walba ku dadaasho dhisitaanka iyo match-gareynta inaad iswaafajiso qanaacada macaamilka iyo adeega ama alaabta uu ganacsigaagu hayo su'aasha aan isweydiinayna waxay tahay macaamilka maxaa qanaacada ka qaada jawaabtu waxay noqonaysaa saddex arrimood mid in macaamilku marka uu ganacsiga yimaado adeega uu rabay iyo waxa uu filanayay ay isyeelan weydo qodobka labaadna waxa weeyaan marka uu macaamilku meherada yimaado qiimaha uu wax ku rabay iyo qiimaha uu ganacsiga ku iibinayo markuu aad u kala duwanaado qodobka saddexaad marka uu macaamilku ganacsiga yimaado waqtiga uu rabay in wax loogu qabto adeegaasi ama alaabta uu ganacsigu bixinayo waqtiga uu rabay in loogu qabto haddii uu ka bato waqtiga uu filanayay saddex arrimood macaamilka qanaacadiisa lumiya haddaba markay cabashooyinkan oo kala yimaadaan sidee baa loo xiliyaa afar mid baynu ku xallin karnaa dhageyso labada dhinac ee kala cabanaya adigoo si degan u dhageysanaya ka shaafi macaamilkaaga cabashada uu ka qabo adeegaaga ama mid ka mid ah shaqaalahaaga qodobka saddexaad amar ku bixi maamule in cabashada macaamilkaaga la xalliyo adiga oon cidnaba ku eedeynaynin qodobka afraad ku dabagal shaqaalahaaga haddii ay cabashada wax ka qabteen iyo haddii aanay waxba ka qaban ku daba soco ilaa iyo inta macaamilkaasi cabashadiisa laga jawaabay marka macaamilku uu ka soo cawdo ganacsigaaga maamule waxa lagaaga baahan yahay inaad 5 arrimood samayso inaad macaamilkii magdhow siiso inaad qiimo dhimis u samayso in wixii uu ka cawday laga bedelo iyo in lacagtiisa loo celiyo ama in qodobka ugu dambeeya oo noqonaya raaligelin in loo sameeyo oo laga raaligeliyo cabashadaasi ku timiday haddaba si macaamilkaagu u guuleysto afar arrimood baa noqonaysa inaad maamul samayso inaad qancinta macaamilka aad ku darto
istiraatiijiyadda kambaniga ama ganacsigaagaas uu leeyahay, inaad shaqaalahaaga ku tababarto qancinta macmiilka, ogaatana in tababarkaasi saxa u qaatay. qodobka saddexaad noqonaya inaad siyaasad cad ka yeelato sida loo qanciyo macmiilka oo ay noqoto sharci shirkadda uga yaala qancinta macmiilka. qodobka ugu dambeeya oo noqonaya inaad samayso sanduuqa cabashada. markasta oo aad macmiilkaaga cabashadiisa ka jawaabto, si fiican aad uga jawaabto, waxay noqonaysaa markasta oo ganacsigaagu guuleysto. barnaamijka maanta intaasuu ku koobay. aad baad u mahadsantahay.